imaaraadka horta waa dawlad aan saaxiib ahayn waana dawlad aan ururka carabta iskula jirno iyo midka islaamkaba hase ahaatee iyagoo ka faa'iidaysanayan burburka Soomaaliya ayay mataqaanaa Soomaaliya marka istiraatiiji iyaga ay ku danaysanayaan ayay la yimaadeen inkastoo dadka Soomaaliyeedna ay marmarka qaarkood ay caawinayeen oo hadee dib kaliya ma ahayn dheef barteedna waa laga helayay oo ummadda Soomaaliyeed dad badan oo ay mar walba gacana laga helayay hase ahaatee waxay ku soo duuleen oo ay markii ugu dambaysay ay dawladdan Soomaaliya u adadkaysa weyday faragelintii qawneed ee ay dekada berbera ay mataqaanaa heshiiska ayna dawladda federaalka ayna ka warhayn ay la gashay taasoo markaas haddana dawladda Etoobiyana ay ku soo dartay marka waxay noqdeen markii la fiiriyey meel ayna ka jirin nidaamka dawliga maxaa yeelay haddii ay laba dawladeed wada hadlaayaan waa la yaqaan laakiin waxay noqdeen wax uun kaliya qof walbow dhinacaaga ka gooso ayay u ekaatay taasna dawladda Soomaaliya kuma ekaane markii ay muujisay oo walwal iyo qayla ka muujisana baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii hadda ugu dambaysa sessionkan ugu dambeeyay ama fadhigan ugu dambeeyay oo madaxweynuhu uu furayay oo ay ka soo wada qayb galeen dawlad goboleedyadu ayaa si isku mid ah oo aragti midaysanay ummadda Soomaaliyeed arrintaas inaan loo dul qaada karin ayaa laga muujiyay taasna mooshin degdega ayaa baarlamaanka Soomaaliya ayuu ka soo saaray wuxuuna ku guuleystay inuu sharci mamnuucaya shirkadda DP World inay mataqaanaa meesha ay ka baxdo lagana mamnuuco geyiga Soomaaliya taasaa ka soo baxday oo si wada jira mataqaanaa hadday dawlad goboleed tahay iyo hadday heer federaal tahay iyo hadday baarlamaankii tahaba si muwaafaqa leh loo wajahay wixii waxaas ka dambeeyana iyaga hadee sidii ay u hadleen waa ogeedo waxay nidaamkii diblomaasiyadda waa ixtiraami waayeene ninkii shirkadda ka madaxda ahaa oo sabkunturaad ka heestay ninka dhaxalka hadda ku fadhiya shirkadiisa waxay iyaguna markaasi siday rabeenay u hadleen haddii shirkadda kaliya mataqaanaa ay dawladda Soomaaliya la hadashay ama ay ka mamnuucday dawladda Imaaraadka xiriirkeeda iyo dawladda Soomaaliya markaasi wili waa furaayo problem kama jirin in la wada hadla oo si wanaagsan arrintaas la isaga yimaado nidaam diblomaasiyada ay dawladda Imaaraadku la timaaday heeda cirkay ku tashay waxay rabtay samaysay meelihii ay dalka Soomaaliya ka fadhidana way isaga insaxaabto idaa iskeed uga guurtay idoon cid naga baxayna dheh marka taas waxay u muuqata marka inay wax isbiday dawladda Soomaaliya ay madax gaabsatay oo markaasi ay sharaftii iyo karaamadii iyo independence-ga waxa loo yaqaan ama mataqaanaa madax banaanida territoriyada Soomaaliya inaynan markaas mataqaanaa ina waxba u ambayay dawladda Soomaaliyana waxaad ogtaa inay markaasi dacwo ay u gudbisay jaamacadda carabta markii ay u gudbisana in wada hadal laga gala dawladda Soomaaliya way soo dhaweysay cabashana way muujisay markaas hadee dawladda Imaaraadka marka waxay keenta marka inay wili ay ku sii adag tahay inay khaladaadkeedii sii wadato
taasna hadde mar haddii ay annagu aanan dalkeena ku duulin oonan annagu wax aan u dhibna ayna jirin dowladda Soomaaliya inay hadde madax bannaanideeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda ay ilaaliso waa waajib muqaddas waana wixii mataqaanaa madaxda dalka ayaaba mataqaanaa haddii ay arrintaasi ay tilaabta ku habboon ka qaadi waayaan iyagaa xil ku wey kara sidaa darteed marka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodu marka arrintaas iska caabin weyn ayay ka sameeyeen